بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إن شاء الله waxaynu tilmaamnay maqaasida dunyawiga ama fawaaidda ay adduunka ku leeyihiin cibaadaadka ilaahayna faray subxaanaه wa tacaala wax ka mid a. maantana waxaynu tilmaami doonaa qadiyatu tawxiid, khaasatan nolosha aynu ku noolahay iyo waxtarka ay ku leedahay. waa macruuf aakhiro dee iyada mooyaane wax kaloo lagu badbaadaaba ma jiraan, laakiin dadku adduunku isleeyahy malaa wax kaloo lagu badbaadaabaa jira. marka waxaan rabaa inaan wax ka tilmaamno adduunka iyo sida ay waxtarka ugu tahay. أولا كلمة التوحيد وشعار أنا رنكرنا وحكوه سجل الدين تدبانتد دين تو التوحيد وحصاها وفروع هدي عبادات هي حتى هدي أركان الإيمان كأنت كلاتها هدي ويران لها أما وحون سلوغن يعني أستان un diin tilmaamaysa hadday jirto waa kelmadatan laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah baa diinta tilmaamaysa. towxiidkaasi oo culammadu ay ku tilmaamaan inuu yahay alcamalu biاllah, alcilmu biاllah walcamalu lilah. inaad ilaahay barato subxaanahu wa tacaala, waxaad qabadanaysana isaga dartii aada ula timaadid. culammadu aqsaamta ay sheegaan waa iska tafriicaad faniya. in idhaahno towxiidku wuxuu u qeybsamaa towxiid almacrifa walihbaat iyo towxiid alqasd walطalb, ama wuxuu u qeybsamaa towxiid alrububiya, towxiid aluluhiya, towxiid alasmaa wasifaat, ama dadka bari inay yidhahdaan maba qeybsame waa midka in loo kali yeelo. ilaahayna wuxuu u doortay inay kelmadda ah laa ilaaha ila allah inay cinwaan u noqoto. cinwaan loogama dhigin laa khaaliqa ila allah ama laa rabba ila allah ama laa raasiqa ila allah. yani qasdin baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u doortay kelmaddu inay ahaato laa ilaaha ila allah. waxaa loogu doortay markaa waxay tilmaamaysaa macno gaara inay sii samaynayso, oo in badan oo bini aadamka ka midi, inkastoo casrigan dambe ay soo badanayaanba towxiid urububiya cidka diidani, aadanuhu taariikhdiisii marka la eego dadyawga alle jiritaankiisa dafirsane waa wax fara ku tirisay ahaan jireen. haddaad falaasafadii hore akhrido iyo haddaad culammadii hore akhrido iyo haddaad taarikhda bini aadamka akhridoba, waxaan ahayn number lagu xisaabtamo bay ahaayeen. casriganse waad moodaa cilmaaninimadu inay ilxaadnimo dhashay, diin la-aanta dadka lagu rabeeyey inay alloo la dafiro keensatay. waad moodaa wakhtigan inay soo badanayaan. haddaba kelmaddaasi ah macbuudku inuu alle yahay keliya qura. afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaah baa ilaahay tilmaamaya. ka waran dadka ka yeeshay ilaahiisa ama wuxuu caabudayay ka yeeshay hawadiisa. ilaahay qur-aanka wuxuu in badan inoogu tilmaamayay in weedha ambiyada lagu soo diray. was'al man arsalna min qablika min rusulina ajcalna min duni الraxmani aalihatan yucbaduun wma arsalna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayh annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun. in badan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka waxa uu ku tilmaamayaa wixii rusulba lagu soo diray ee ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa rasuulba ka yimi, ee nebi maxamed ka horreeyay ilaa iyo nebi maxamed, waxaa lagu soo dirayay dhammaantood calayhim assalaam weedha ah laa ilaaha ilaa ana faacbuduun, ama weedha ah laa ilaaha ila allah baa lagu soo dirayay. waa weedh tilmaamaysa in cibaadada ilaahay keligii loo sugo. waa markaasoo quraanu qofku yahay mu'min. inuu waxa kale sugaa oo keliyi mu'min ku noqon maayo. waayo qur-aanka waxaynu ku aragnay, dee ibliis baynu aragno, dadkaba shayaadiinta kii u weynaaya oo khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin leh, ama qaala rabbi faandirnii leh, ama qaala fabicizatika leh. waxaasoo dhan isagoo rumaysan ba haddana kufri lagu xukumay. macnaheedu waxa weeyaan haddaan cibaadadu
camalka qofku uu qabanayo waxbaa wixii xagga alle ka yimi waa la rumaynayaa, waxna waa wixii adiga kaa tegayey. ilaahay inuu khaaliq iyo raasiq iyo muxyi iyo mumiit yahay waa wixii xagga rabbe ka yimi laynaga raba inaynu rumayno. laakiin rumayntaasi waa inay keensataa waxa innaga inaga tegayaana inay macnaha tilmaamayaan. waa cibaado waxaa xaggiinna ka tegaya inay taa noqdaan. saa daraaddeed ayaa qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa wixii uu rusul soo diroo dhammi weedhaa inay ku dhawaaqayeen. qur-aanka markaynu akhrinana qur-aanka qisas aad u tiro badan baa ilaahay inoogaga warramaya, oo qisaskaasi waxay cumuuman sheegayaan taariikhda bini aadamka nooc kastoo ay tahayba. hadday tahay kuwa munxarifiina, kuwa siyaasiyiina, kuwa rabbinimo sheegtay, hadday tahay ambiyo, rusul, boqorro muslima, noocay doontaba ha noqoto. taariikhda bini aadamka oo dhan baa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya muujiza. rusushaa ilaahay soo wada diray waxaa qur-aanku sheegayaa inay mas'aladaa dadka ugu yeedhayeen, dadkuna inay mas'aladan diidanaayeen. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. waxay ugu jawaabayeen aji'tana linacbud allaha waxdah wanadara ma kana yacbudu aabaa'una. mas'alada muranku ka taagnaaya markaa rususha waday kan bay ahayd. haddaba waxaan leenahay tawxiidkaasi ahmiyada uu leeyahay adduun iyo aakhiraba. ahmiyada uu leeyahay daraaddeed ayaa rusushoo dhammi dacwadooda uu ka dhex muuqday. dadkii rusushu direen dacwadooda uu ka dhex muuqday. asalka bini aadamka loogu yeedho. inxiraaf kasta oo aadanaha ku dhaca meeshu doonaha kaga dhaco, mid dhaqaale ha noqdo, mid siyaasadeed ha noqdo, mid kale, wax kasta oo bini aadamka oo qallooco uu la yimaado, marka la rabo in la saxo waxaa laga saxaa in laga bilaabo qofka in tawxiidkiisa la saxo. hadduu qofka tawxiidkiisu alle weynayntiisa iyo ku-xidhnaantiisu cibaadadu ilaahay caabudaya hadday saxanto, waxa kale si fudud bay u saxmayaan. walidalik baa tawxiidkaasi waa rusushu meeshay ka bilowday, waa cidda wax saxaysa meesha la rabo inay ka bilowdo, waa qofka raba inuu ilaahay u dhowaado halka uu ka bilaabayo. ilaahayna qur-aanka isagoo rususha inooga warramaya wuxuu leeyahy laqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi faqaala yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin gayru. nabiyullaahi huud baa ilaahay leeyay ucbudu allaha maa lakum min ilaahin gayru. nebi saalix baa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya oo le ucbudu allaha maa lakum min ilaahin gayru. nebi shucayb oo le ucbudu allaha maa lakum min ilaahin gayru. fi suurati alacraaf qisada isdaba taxan walaqad bacanaa fi kuli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaguut. ilaahay wuxuu leeyay ummad kastoo aanu rasuul u soo diray, ummad kasta rasuul baa loo soo diray. rasuulkaasina wuxuu lahaa alle keligii waxida, keligii caabuda, oo wixii aan alla ahayn cibaadadooda ka fogaada. nebiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam halkaasuu isna ka bilaabayay. xadiiska imaamu axmed iyo bayhaqiba warinayaan can rabiica ibnu cabaad oo min bani dayla. xadiidka kan sheekh alalbaani saxiixa ku tilmaamaya wuxuu sheegayaa saxaabigana yar oo aan muslim ahayn oo jaahiliyadii jooga ayaa wuxuu leeyahy waxaan arkay suuqii dilmajaaza lo odhan jiray nin taagan oo dadku ay ku urursan yihiin oo leh yaa ayuha annaasu quuluu laa ilaaha ila allah tuflixu leh. wardadow waxaad tidhaahdaan laa ilaaha ila allah tuflixu, waa liibaanaysaan, oo dadku ku urursan yihiin. nin baa daba socday buu leeyay qurux badan oo timaha laba meelood ka guntaday, oo indhaha xawal yari ka muuqdo, ashqaro yar ka muuqdaan, oo intuu isdaba taago meeshuu istaagaba leh innahu saabi'un kaadib, waa mid diintiisii ka baxay oo beenaalo ah. markaasaan idhi buu yidhi aabbahay la socday aabakari muxuu ahaa? kaasi waa moxamed ibnu cabdillaahi buu yidhi, kan daba socdaana waa adeerkii. waataynu shalay tilmaamayna ka warra adeerkaayoo lagu daba dhigo halkaas taagtaba intuu iskaa daba taago yidhaahda wiilka iyaga waxba sheegi maayo, been buu sheegayaa. maxaa looga bilaabayaa baynu leenahay? haddaynu bini aadamka u fiirsanno, dhibaatooyin badan baa bini aadamka ku dhaca oo nooc walba leh.
dhibaatooyin dhaqaalaha ku dhaca, dhibaatooyin siyaasadeed baa ku dhaca, dhibaatooyin akhlaaqeed baa ku dhaca, dhibaatooyin dowladnimo ku dhaca. waxaan leenahay waxaas oo dhan haddaad rabto inaad saxdo, waddada saxa ee loo maraa waa inaad tawxiidka martaa. waddada saxa ah ee loo maraa waa inaad tawxiidka marto. waayo tawxiidku waxaynu ku tilmaamaynaa inuu yahay qofka bini aadamka furihiisa. guriga haddaad rabto inaad gasho meel laga galaa jira soo maaha. haddaad sidaa derbiga ka soo gal dee waad daalaysaa, laakiin haddaad albaabka iska furto si fudud baad u gelaysaa. insaanku meel buu leeyahay laga furo, oo haddii uu asaxo ama uu hagaago furaha lagu furayaa, wax walba ay hagaagayaan. walidaalika baa nebigu calayhi salaatu wasalaam ama ambiyadii oo dhammi iyagoo dhibaatooyin kala gedisani bulshooyinkay u yimaadeen ay qabeen. qur-aanku wuxuu ka warramayaa qaar dhibaataday qabeen ay tahay maxay? dhibaatooyin ka gedisan kuwa kale, haddana dhammaantood waxay ka soo bilaabeen halkaa. nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam isagoo halkaasuu ka bilaabay. dadkii uu dirayey, maalan saxaabuu dhulal kale u diray inay ama xukumaan ama ducaad ka noqdaan, diin gaadhsiiyaan, safiir ka ahaadaan. waxa uu ku dirayey waxay ahayd halkaa ka bilaaba iyagana. مثل معاذ بن جبل ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yaban u diray. xadiiska saxiixeyn ku yaalla wuxuu ku yidhi mucaada waxaad u tegi doontaa duul ahlu kitaaba, ee waxa koowaad ee aad ugu yeedha ha noqoto shahaadata an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah. tawxiidka ugu yeedh. tawxiidkaa hadday kaa aqbalaan kadib salaad ugu yeedh, kadib waxaa ugu yeedh. tawxiidka ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka xataa markuu nicmooyinkiisa inoo sheeganayo, gallad sheegasho, yani waxa uu nimcayna siiyey ilaahay marka uu tilmaamayo. maalan fi suurati naxl, culamada badh waxay ku tilmaamaan suurati nicam inay tahy. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nicmayna siiyey buu ka warramaya. waxa rabbi ku bilaabayaa nicmatu tawxiid baa ugu weyn waxa nimco layna siiyey ka dambeeya o dhan. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. كدب إلهي وحشيغيا النعمو ليدي إيا عركا إيا دولكا إيا وحاد حدق الله يروس خيري إيا وبيو إيا بد إيا وحاس ودن بهدو إلهي كورميا إلى حد الله وكيد هذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا وحاس النعمة مركي رب الربي إنو ينوغا ورمو ينوغو قلت شيكتو. wuxuu kow tilmaamay nicmatu tawxiid inuu inoo soo diray rusul, malaa'ig loo soo diray rususha u waxyoonaysa, oo waxa koowaad ay u waxyoonayeen uu ahaa an andiruu annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun. qadiyatu tawxiid. walidalik baa sufyaan ibnu cuyayna muxadidkii ahaa sheekhi shaaficiy ayaa wuxuu lahaa maa nacama allahu calaa cabdin min alcibaad نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. إلهي قفنا كما النعمين نبولي نمع كوين إنو برا كلمة التوحيد كاسي نمع كوين قفنا مهلو. أيها الأحبة مركا وحين لا نهي توحيدكم ومعقد النجاة في الدنيا والآخرة، ووحى أدون iyo aakhiraba lagu badbaado. dadku inta badani way u haystaan aakhira in lagu badbaado, saxiixa maaha. inta badan waa rumaysannahay maadaama aynu muslimiin nahay aakhiro tawxiidku inuu yahay in wax lagu badbaado, janno inaanu gelaynin qof aan ahlu tawxiid ahayni, inaanu janno gelaynin xaaraam ay ka tahay. qur-aankaa caddeeyo kaa waynu rumaysannahay. laakiin dadka waxaad moodaa in badan inaanay weli u dhaadhicin isaga islaaxa dunawiga ama ku samayn karnaa. oo markaynu idhaahno adduunkeenna aan hagaajinno, wadaad bal horta tawxiidka dib inoogu yaro dhigo, waxaynu u baahnay arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada in wax laga qabto, oo dad baaba'san oo gaajaysan oo caynkana. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimi carab oo baaba'san.
carab oo qaybta waqooyi ee beeralayda ah ay haystaan dowladdii romanisku iyo boqortooyooyin hoostaga romaniska. carab oo labada webi raafideynka ciraaq iyo xagga kan bershiya ay haysato. carab oo yeman iyo inta wax ka baxaan bershiya iyo romaniska dowlad ka wakiilo xabashiya ay ku loolamaan oo kolba qolo qabsato. carab oo inta dhexe ee jaziira alcarabiya la yidhaahdaa warankiisa nin waliba uu hadhsado oo waxaad dili kartana aad disho, waxaad boobi kartana aad boobto. nebiyullaahi moxamed kama bilaabin calayhi salaatu wasalaam cadaaladda ijtimaaciga iyo dhaqaale iyo qoomiyadda carbeed sidii loo ururin lahaa iyo gumaystaas sidii la isaga kicin lahaa iyo waxaasoo dhan. wuxuu ka bilaabay waxaasoo dhan meel ka sokaysa oo dagaal badani kaga hor yimi oo dadka kuwii u dhowaa ay yihiin kuwan ku maagaya ee ka hor jeeda. wuxuu ka bilaabay qadiyati tawxiid, alle keligii in la caabudo, alle keligii in la caabudo. laakiin taa markuu ku guulaystay waxa fududaaday waxa kaloo dhan in si fudud loo xallili karo. waxaa fududaaday inay 50 sannadood gudahood dunida kaga taliyaan saxaabadiisii. laa bershiya walaa romanis laga takhalluso, inay iyagu noqdaan dowladdii ugu korraysay dunida ka jirtay. xaggay ka yimaadeen? waxay ka yimaadeen baadiye saxaara aan waxba oolin, dhaqaale jirin, dhaqan oolin, socially la burbursan yahay, politically in every aspect oo nolosha loo eego la burbursan yahay ka yimaadeen. laakiin tawxiidkaasaa dabagediyo ka dhigay qaada. tawxiidkaasaa ka soo saaray inay cumar iyo abibakar iyo khaalid iyo cuthmaan noqdaan, inay noqdaan ragga la yaqaano. waxaan leenahay tawxiidku waa ilaahay xaqiisii. marka ilaahay xaqiisa la sugaabay xuquuqda kaloo dhammi sugantaa. maanta waxaad maqlaysaa xuquuqda dumarka, xuquuqda ragga, xuquuqda caruurta, xuquuqda dhallinyarada, soo xuquuq oo dhan ma maqashaan ilaa xad xuquuqda xayawaanka environmentka laga warramayo. xaqa quree aan dadku ka warramin wax weeyaan ilaahay xaqiisii. ma maqashay ilaahay xaqiisa wax ka warramaya? waa naadir. ilaahay xaqiisa hadduu sugmo xuquuqda kale isagay ka sugantaa, isagaa sugaya. saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal oo dhallinyaro oo la socda dameer yar oo ufayr la yidhaahda la saaran ayuu nebigu ku yidhi, mucaadow ma taqaanaa ma xaqullaahi cala alcibaad? ilaahay xaqa uu addoomihiisa ku leeyahy ma taqaanaa? saxaabadu oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu wax weydiiyo inta badan waxay ugu jawaabi jireen alle iyo rasuulkiisaa garanaya, iyagoo raba inuu cilmi u ziyaadiyo. dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, xaqu llahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya. ilaahay xaqu addoomaa ku leeyahy waa inay caabudaan waanay cidna ugu shiriig yeelin. marka xaqaasi sugmo ayaa xuquuqda kale sugantaa. haddii se xaqaa la beerdareeyo kolba qoladii xoog badan unba xuquuqda qaadata. meesha raggu xoog badan yahay isagaa qaata, meesha dumarku xoog badan yihin iyagaa qaata. kolba qoladii uun loolan, haddii loolan la galo ciddii loolanka xoog badisa uma qaadata. amaa bini aadam haddii la rabo in la islaaxiyo, ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa kuwo siyaasadoodu inxiraaftay. akbar dictator dunida soo mara ee taariikhda qur-aanka uu ka warramaa waa fircoon. fircoon xabaalaha u daawasho tagtaan waa nimankii lahaa xabaalahooda. ahraam soo ma maqashaan? ahraamtu waa boqorrada xabaalahoodii. nimankaa ummad dhan u sakhiray inay xabaal ku qotaan. ninkaa kibirku gaadhsiiyey inuu yidhaahdo anuunbaa rabbiya, dadka ugu khudbadeeyo. dadka ka kaalaya xaashidiisii mala-u waa dee intan madaxda ka agdhadhow wasiirada iyo maxaanku idhaha baarlamaanada iyo waxaasoo kale. kuwaas isagoo la hadlaya wuxuu ku leeyahy maa calimtu lakum min ilaahin hayri. isla soo dhaaf shacabkii, waa kuwii agtiisa fadhiyey ayuu wuxuu ku leeyahay maa calimtu lakum min ilaahin hayri. ninkaa xukumay dad dhan ilaahay rasuul buu usoo diray tawxiid wada.
reer Madiyan oo dhaqaalaha inxiraafay oo qutaacu طariiq noqday oo wax badan sameeyey nebi shucayb baa loo soo diray wuxuu uga bilaabay tawxiid ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh kadib buu awful mikyaal iyo miisaan iyo marka dambe ka warramaya laakiin wuxuu ku bilaabayaa qadiyatu tawxiid reer caad ama reer thamuud niman xadaaro leh oo xoog waaweyn oo buuraha gurye ka qotay oo cajaa'ibtan iminka dib loo soo qoday loogu tegey dhulalka qaarkood raggii ka tegey ee xadaaradaa lahaa nebi saalex iyo nebi huud baa loo soo diro waxay ka bilaabeen ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh waxaan leenahay markaa mushkiladda bini aadamku waxay doonta ha noqoto mushkilad siyaasiya ha noqoto mushkilad dhaqaale ha noqoto mushkilad social ha noqoto mushkilad akhlaaqiya ha noqoto waxay doonta ha noqoto aqsar طariiq lagu saxi karaa jidka u gaaban ee lagu saxi karaa waa inaynu tawxiidka bilowno waa in dadka kan rabbigood si fiican loogu xidho inta badan waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan bini aadamkii hore gaboobay iyo taariikho horaad ka warramaysa hadda taariikhda dunidu way horu martay oo technology yimi oo kama war aadanuhu waa aadanihii laakiin aan tajaarib idiin sharxo saddex tusaale aan tilmaamno mid waa tajribada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalan saddex qolo oo isku dayay inay khamriga xal u helaan carab waxay ahaayeen dad mashaakil ku nool dadku markaanu diin fiicanna lahayn mashaakilkana ku bato khamriga wuu badsadaa oo dunidaba inuu is-ilowsiiyo oo ka baxo ku talagalaa carabi markaa khamriga waxay u cabbi jirtay si aan hayru caadiya dee waxaad ka garan kartaa adabkooda ninku hadduu gabay tirinayo araarta gabaya carbeed dee khamriya naag iyo faras bay ahayd saddexdaa ninku haddaanu gabayga ku darin macnaheedu wax weeyaan gabyaa ma aha marka gabayga markuu araaranayo ninka carbeed waa inuu khamro ka warramaa waxaad ka garan kartaa khamrada magacyo badnideeda boqolaal magac bay af carabiga ku leeday ilaa xad ay yidhaahdaan jaziira alcarabiya lafdu taajir bay yidhaahdaan markaad maqasho wuxuu ahaa taajirka ugu weyne ninka khamrada iibiya calamaa ka taagnaan jiray alghaaya la yidhaahdo dabeetana ereyga taajir marar badan waxaa loo isticmaali jiray bay leeyihin ninka khamriga iibiya iyadoo khamri sidaa loo cabo oo mashaakilka haystaa dadkan uu tiro badan yahay oo dhac iyo boob uu ku badan yahay oo cadaalad darra ay jirto oo dhaqan xuma ay jirto oo sanam la caabudo oo khamrigaa la cabayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khamriga iska daayaba ugama bilaabin waxyiga ku soo degay waxaa la yidhi waxaad uga bilowdaa tawxiidka khamriga waxay muslimiintu cabayeen 15 sannadood oo ay muslim ahaayeen khamriga mamnuuciisa kama dambaystahay wuxuu soo degay maxay beder dabadeed meelaha sanadkii labaad ee hijriyada sanadkii labaad ee hijriyada iyo 13 sano maka la joogay 15 sannadood ba khamri la cabayay tusaale haddaan idin siiyo sida khamriga loo cabayay مثلا غزوة بدر علي بن أبي طالب نيف قيل أبو هلاي غنيمة كهلاي دبتنا وحو الربيين وأراس نكته إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها أيو الربيين قرسده نيف قيل وحو الربيين ودكو ولي ميسته كاينتو بحيسقيا نكالينتا إسراعين وحوغا صحابة يستوه oo waxoogaa kaloo shilimaada si uu suuqa uga iibiyo uu helo oo aroos ku dhigto iyada uu kaynta ku maqan yahay ayaa qolo saxaabi khamri cabtay ragga khamriga cabaya markaa waxaa ku jira xamza ibn cabdilmuطalib nabi maxamed adeerkii khamriguna dee mamnuuc ma ahayn markaa khamrigii markay cabayeen bay gabadhi war sheegtay heesa way leedahay kurskiiyo beerka ma isu kaaya saartaan xamza oo sakhraansan baa soo kacay dabeetana hashii caliyo halkan fadhida ayuu birta mariyey habluhu kurskiiyo beerka isu saaray waxaa yimi cali ibn abi aalib dabeetana hashiisii buu eegay war hashaydiyaa sidan u galay waxaa la yidhi adeerka xamza sida u galay wuu dhaqaaqay oo nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow bal wuxuu xamse sameeyey balkaaleh
waa soo raacay nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa loo yimi neefkii geeliyo dee la qalay. dabeetana way soo baxeen. waxay u yimaadeen xamse iyo raggii meesha khamriga lagu cabay oo sakhraansan. xamse markuu nebigu isu soo dul taagay intuu cagihiisa eegay buu ilaa madaxa indhaa koru raaciyey isagoo le wahal antum ilaa min cabiidi abi, idinkuna miyaa ahaydeenuun addoomihii aabbahay mooyaane ma wax kala ahaydeen buu ku leeyahy. waana sakhraasantee. dabeetana way iskaga tageen. khamrigii sidaa loo cabbayey, qur-aanku aayaad afaraa soo degay oo kolba si loo tilmaamayo. mar risqiga xasanka iyo sakarka la kala saaro, mar lagu tilmaamo manaaficna inuu leeyahay madaartiisu ka badan tahay, mar la tilmaamo wakhtiga la cabaya in la xadeeyo wakhtiyada salaada inaan la cabbin. akhiiran waxaa soo degtay aayaddii la leeyahay fajtanibuu, ka dheeraada baa soo degtay. aayadda qur-aani markay soo degtay, raggii khamriga cabbayey gacanta ku hayay beeg dambe kor umay qaadin baa la ydhaha way qubeen. waxay idhahdaan khamrigii la qubay suuqa qamadiina wuu rogmaday. suuqa madiina wuu rogmaday khamrigii. dabeetana khamrigu saasuu mamnuuc ku noqday. bulshadii dhammayd ee sakhraansanayd ee dawaqsanayd waxaa la yidhi khamrigu waa mamnuuc bes. saasuu ku joogsaday. way u yimaadeen dadku iyagoo waxyaabo badan sheeganaya nebiga calayhi salaatu wasalaam. maalan dee tijaara ku jirtay oo lacag baa ku jirtay. qolaa u timo waxay dhahaan ilaahay rasuulkiisiiyo xoolo agoomeed baa ku jira ee dee aan u caddayno quba buu nebigu ku yidhi. qaar kale u yimi oo waxay idhaahdeen annagu ilaahay rasuulkiisiiyow dawadaanu ku daraa oo waxoogaa dawooyinama isagaaba bukaana buu nebigu yidhi, dawaha ku darinee daadiya. qolo kalea u timo waxay dhahan anagu xaggan iyo yamanoo meel qabow baanu joognaayo markay dhaxanta tahay aanu shaqada ayaanu waxoogaa isku kulaylinaa, waa isku diirinaa oo waa u baahanay. wahabaa isku diirininee daadiyabu wax sababoo kastoo ay sheegaan nebi maxamed wuu diiday calayhi salaatu wasalaam. khamri sabab kastoo ay u sheegeen wuu diiday. bale qaarkood wuxuu ka gaadhsiiyey weelashii lagu kaydin jiray in la jejebiyo. الدباء يكان انتو ويلال تلمامي نبيكو عليه الصلاة والسلام وويلا شي خمرقة لغو سمين جري خمرقة دا والله خميرية ويل آن ميل ضلوشة لهين أفكنا كحد مكربة لغو سمية مركا ويلا شي نوعا هاي لغو سمين جري حتى كوا بربريو تلماما إذن وح كستو سبابا إشيغان وديدي دبتنا خبر يوجوك سدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أسكر ومدرين عيدا مكو مسورقين دعايات ما سمينين إعلانات ما سمينين وحكى له للسمية ما شرته إذا وأقصر طريق مشكلة اللي هو حل لي أنا ما أدنو قرني قال باتنات دولة حوك هي حوله هي علم بله أكبر دولة في العالم سماها مريكان والدولة ده حوك قوينة وأقول هي علم بله ayaa waxay aqoon-yahanadoodii muujiyeen khamrigu inuu yahay poison sun inuu yahay inay tahayna in dadka laga joojiyo dabeetana waa laga wada hadlay khamrigii si xoogan baa looga hadlay waxaa la yidhi khamriga waa in ummadda maraykana iska dayso maxaa la sameeyaa waxaa la yidhi kow waa in la gaadhsiiyaa qaanuunka federaalka dastuurka waa in lagu daraa suu dastuurka ugu darsamo ummadda maraykan oo dhan baa iftaa laga qaaday khamriga ma mamnuucnaa mise waynu daynaa ummadda maraykan waxay majoritigeeda qaadatay khamriga in maxay in la mamnuuco kongareskaa la mariyey labada goloba waa saxeexeen inuu khamrigu mamnuuc yahay dastuurka maraykan inta badani waa wixii ay qoreen founding fatherski aabayaashii sameeyey bahalka wax yaryar baa lagu daraa amendments la yidhaahdo amendmentka 18 baa laga dhigay markaa oo la tilmaamayo federally waddanka oo dhan dastuurkiisa in lagu daray khamriguna uu mamnuuc waddanka maraykanka yahay in dad cabo oo la iibiyo oo la gado waxba lagu sameeyo waxay yidhahdaan 9 milyan oo paper baa lagu qoray dacaayadiisa iyo wax ka seegiisa culamada dhaqaalaha culamada socialka culamada sayniska culamada tibka culamada kan cid waliba waa ka warrantay khamriga iyo boysinimadiisa
dacaayadiisi baa la tiro badiyey waxaa la yidhi waddanka schooling systemkana ha lagu daro waxaa laga bilaabay dugsi hoose ilaa iyo jaamacad baa khamriga dhibtiisa lagu dhigayaa wuxuu ku jiraa maxay syllabuska dowladood 1990 January ayaa dastuurka lagu daro oo la saxeexay inuu khamrigu waddanka Maraykan mamnuuc ka yahay waxaa la yidhi January 1920 ha hirgalo halkaas sannadoodna dadka ha la siiyo fursad wacdiga iyo loo badiyo wax sheega iyo sida loo waana qaanuuniyan 1920 January markay gaadhay khamrigii waa la joojiyey waddanka Maraykan dabeetana dadkii balwadda lahaa may joojin ee way cabbeen khamriga cabbistiisii baa sii badatay suuqii madoobaaba batay waxaa bilaabmay waxay u bixiyeen blind pigs alkhanaasiir alcamyaa waa meelaha khamriga lagu sameeyo mukhbaarado hoose waxaa bilaabmay khamriga noociisiiba inuu xumaado oo spiritku waa kan labada nooca ethyl iyo methyl mid haddaad cabto waa lagu indhabeelaa waa wadnuhu istaaga waa lagu dhintaa waa kan ay tuugtay waxaan intay shiishiishaan cabbi jireen midna waa kan un lagu sakhraamo wixiiba waa isku darsameen oo ka khashabka laga samaynaya tiro batay dad badan baa indhabeelay bukooday caynkan dowladdu waxay tidhi loo joojin maayo bahalkaasi waa mamnuuc waxay gaadhay in mujrimiin iyo cutaad iyo suuqa madoobe uu bilaabmo xabsigaa laga buuxiyey nus milyan bini aadama baa khamri lagu xidhayo sababtii way sii adkaatay maxkamadu waxay yidhaahdeen mujrimiinta waaweyn dil ha lagu qaado 200 oo qof oo Maraykana dil lagu xukumay oo mujrimiintii waaweynayda ee bahalka kan iyo mashaakilkiisa sii waday muddaa sidaa lagu waday laakiin dadkii khamrigii ma daayeen maya waxay yidhaahdeen conceptionkiisii baa sii batay dadkii cabbayaa sii tiro batay problemkiisii baa sii tiro batay 1933 markay marayso ayay dowladda Maraykan dib u fadhiisato oo la yidhi maxaynu yaallaa khamriga mamnuuciisii wuu fashilay mushkiladiisina way sii tiro badatay maxaa xal ah xalkii waxaa la yidhi la garan maayee dadkan iyo waxay doonayaan ha laysu daayo dowladda Maraykan dib bay u fadhiisato waxaa la yidhi gobol waliba go'aankuu doonaya ha ka gaadho federaalkuna wuxuu qaatay go'aan sheegaya khamri hadduu qofku cabsayo intaa gaadhsiisay inaanu gawaadhida iyo dayuuradaha iyo waxaa kaxayn karin na waa qaanuun federaal oo waddanka oo dhan xukumaya wixii ka hooseeyana statesku khamrigii 1933 baa dib loo fasaxay Maraykan waayo wuu u taag waayey axaduhum kutaabtooda ka mid ah wuxuu yidhi khamriga buu yidhi cilmi cusubi kama soo bixine waxaa ka soo baxay cilmi cusub oo xumaantiisa sii sheegaye waa loo tamar waayey baa loo sii daayey buu leeyahy waa halka iminka ku socoto daroogadu iminka in west waxay u badan tahay daroogada ayaraa yar in la soo dayn doono maalinba iminka wadannada badh baa sii daayey qaybaha qaarkood baa la ogolaaday conditionska qaarkood baa lagu xidhay waad arki doontaa una taarikhdan hadday muddo sii yaro socoto daroogadu halkii khamrigu mayana tegi doontaa waa la fasaxi doonaa un say u socoto ma wanaag lagu ogyaa loo fasaxayaa maya waxaa loo fasaxayaa no solution baa la gaadhay xal looma hayo idan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo aan ciidan wadan oo askar wadan oo dad laynaynin oo saynis dhigaynin oo iclaanaad haynin oo tv ka hadlayn oo jaraa'id sii daynayn oo waxba ku oo dadka la basaasaynin oo la daba soconin oo xoog lagu isticmaalayn ayaa ummaddan khamri laga joojiyey dowladdii dunida u xoog badnaydna wax walba way isticmaasho way joojin kari weyday taasi waxay tilmaamaysaa waddada bini aadamka qalbigiisa laga furo ugu dhowi inay tahay tawxiidka waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan casrigaa isbedelay imika cidina joojin kari mayso maya tajribo saddexaad aan tilmaamno labada tajribada hore naxnu alxadaara algharbiya imaam almawduudi fi kutubihi buu kusoo naqlinaya kitaabkiisa la yidhaaho maxamed cali baarna kitaabkiisana alkhamru bayna tibi walfiqi buu kusoo naqlinaya maxamed cali baar tajribo saddexaad buu soo naqlinaya culammaduna ay in badan ka warramaan waa tajribada ku saabsan ninka madoowe Maraykan waxaynu ognahay afrika waxay dhahaan dad 100 milyan ku dhadhow baa 2 qarni laga qaaday almost 75 milyan dad ahi way dhinteen waa la dilay tumistay ku dhinteen 25 milyan baa meesha gaadhay intaasna waa la tumay
beeraha lagu qotay wax walba waa la adoonsaday waxaad ka garan kartaa un dad la gaadhsiiyey qoraalku dembi buu ahaa hebel waxbuu qoraabaa maxkamadda lagu taagi jiray haddaad waxbaba qorto just writing inaad magacaaga inaad qori kartaa waa dembi maxkamad baa lagu taagi jiray addoonka kani waxbuu qoraa marka diin iyo wax walba waa laga masaxay muslim bay u badnaayeen dadka meesha la geeyey laakiin islaamnimadoodii way tirtirantay in yar baa islaamnimadii kusii hadhay oo qarsoodii isugu dhiidhiibay wakhtigan dambe maraykanku mujrimiintu u taag waayey xabsiyada ku jiray iyo dhulkan ku jiray ayaa waxay idhahdeen xabsiyadii baa waxa galay islaam dabeetana cidda qudhee marka hore maraykan wuxuu tijaabiyey mujrimiintan waaweyn ee xabsiga lagu xidhay in rehabilitation si bulshada dib loogu soo celiyo in la hagaajiyo dabeetana projects baa loo sameeyey lagu bixinayo dadka sociologyga bartay dadka psychology bartay wadaadadooda diinta bartay cid walba inay project qaadato bal dadka in human being caadiya dib looga dhigo lagu soo celiyo nolosha caadiga oo ijraamkan iyo khamrigan iyo waxaan laga saaro waa laga saari kari waaye xabsiyada gudahoodii baa noqday meel daroogada lagu sii cabo meel la isku dilo meel la isku kufsado meel wax waliba ka sii dhacaan sinaba waa loo islaaxin kari waaye niman madmadow oo muslima galay dabeetana mujrimiintii ugu waaweynaa bay islaam ka dhigeen dabeetana xabsiya dhan baa waxaa dhacday beersantkii islaamay oo cutaadii ahaa kuwii ugu adkaa khamray ka tageen daroogay ka tageen shuduud bay ka tageen waxay noqdeen dad muslima oo tukado oo cibaadaysto aan waxba ku samaynin waxay ku tijaabiyeen harlem street new york iyo brooklyn xaafadahan madowgu degaanee dee looga baxay ijraamka siraaj wahaajiya guruubadooda way galeen xaafad bay building bay islaamiyeen daroogada kuwii ugu khatarsanaaya bildinka ku xigaa islaamay ku xigaa islaamay xaafado dhan baa waxaa laga nadiifiyey in daroogadu ay socoto ama khamradii ama wixii oo dhan laga joojiyo tajriba nin soomaaliyadan idin soo naqliyaba waxaa jira nin doctora jaamacaddu researcher ka ahaa waa nin sheekho soomaaliyeed jaamacadkan maraykan mid ka mid ah dabeetana wuxuu maalmihiisa fasaxa weekendiga sabtiga iyo weliba wuxuu editor ka ahaa jaridada beeraha ugu weyne ka soo baxda waddanka maraykan toddobadan inay editorskan filayaaba ku jiray nin aqoon-yahana buu ahaa maalinta sabtida iyo axadda waxa u dhowaa jaamacaddu joogo xabsi juvenileka lagu xidho dadka yaryar xabsigaasuu iska tagaa dabeetana wuu wacdiyey kuwan yaryar waa mujrimiin yaryar junuuxul atfaalka child delinquency dadka lagu soo xidhay waa dad qaanuunkuna aanu qabanaynin mujrimiin waaweynna ah oo yaryara waa 14 jir 15 jir dad dilay wax rabshay wax kasta sameeyey boob iyo dhacba sameeyey qaanuunkuna aanu qabanayn marka xabsiyo gaaraa loo sameeyo lagu ururiyo oo juvenile la yidhaahdo kuwaasi uu tegey wuu iska wacdiyey waxoogaabaa uu islaamay wuu ku waday markii dambe kuwii jeelka u yimi waxay idhahdeen war yararkan si fiican u wada wacdi intii aad wacdiday ee islaamtay dad bay noqdeen quman oo toosan kontaneeya u islaamtay wuu sii waday markii dambe stateka new york baa u yimi waxaa la yidhi waxaanu rabnaa shaqada jaamacadda shaqo ka fiican inaanu ku siino stateku ku siiyo inaad xabsiyada wacdidid oo dadka kan mujrimkee loo taag waayey tawxiidka ka dhaadhicisid oo cabdilqaadir doctor cabdilqaadir baa la yidhahaa wuu ka tegey jaamacaddii wuxuu qaatay new york state waxay usoo bandhigeen waa waacidka new york ee xabsiyada wacdiya dad badanna wuu islaamiyey iyagu islaam ma rabaan laakiin waxay rabaan dadkan loo taag waayey sideeba bini aadam looga dhigi karaa marun oo weliba dawladdu project kasta ay ku bixisay hadduu yahay culamaai nafsi iyo culamaai psychology wixii la sheegaya aqoon lahayo dhan waa lagu bixiyey dadkan waase waxba laga bedeli kari waaye idan waxaan leenahay tajribadani waxay tilmaamaysaa nebi maxamed wuu ku guulaystay calayhi salaatu wasalaam oo umma buu ku soo saaray maraykan wuu ku guul daraystay oo wuu soo saari kari waayey wadaad soomaaliyeed ama wadaad madow aan waxba haysan oo waxba wadan laa technology walaa wax kala sidan ee wuxuu wataa ay tahay quluu laa ilaaha illa allah tuflixu baa dib ugu guulaystay haddaba waxaynu leenahay tawxiidku waxaynu u qaadanaynaa u wadnaa maaha inaynu aakhire badbaadno oo qura
iyo badbaadada aakhira marka la tago ficlan aakhira nimaan isaga wadanay badbaadi maayo isaga la'aantii cid badbaadaysa innahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanna qofkii ilaahay u shariig yeelaa qur-aanka ilahay wuxuu ku tilmaamay ilahay waa ka xaaraam yeelay maxay janna waa laga xaaraam yeelay laakiin waxaynu leenahay adduunkanaynu joogno haddaynu rabno inaynu danaheenna dhaqaale wanaajinno haddaynu rabno teenna siyaasiga inaynu wanaajinno haddaynu rabno bulshadeenna inaynu wanaajinno wax kastoo aynu rabno inaynu wanaajinaa waxay u baahan yihiin xataa haddii ay jirto waddooyin badan oo la maraa ifatool ay jirto waddooyin badan oo la maraa waxaan leenahay aqsaruha waddada ugu gaaban ee ugu saxsani waa maxay waa kelmaddana ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru waxaan leenahay wax kastoo aad rabto inaad islaaxisaa waa masaladatan xataa ilmo yar ha aado inagu waxaynu leenahay carruurtii baa loo taag waayey soo maaha ilahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa nin la yidhaahdo luqmaan alxakiim luqmaan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu xikmad siiyey xikmaddii luqmaan waxaa laynooga soo naqliyey warkii dhex maray isaga iyo wiilku dhalay luqmaan ilmo yaro uu dhalay buu la hadlayaa waid qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaciduh yaa bunay luqmaan waxaad xustaan baa ilaahay leeyahy luqmaan markuu wiilkiisii ku yidhi isagoo waaninaya yaa bunaya wiilyarahaygow laa tushrik billaah ilaahay ha u shariik yeelin waayo ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn dee xaqi ilahay baad ku xadgudubtay akbar xuquuq la sugi lahaa ayaad ku xadgudubtay markaa dulmi ka weyni ma jiro ina shirka la dulmun cadiim wuxuu u tilmaamay markaa masalatu tawxiid buu ka maray wuxuu u sharxay ilaahay aqoontiisa iyo wax kasta in aakhire la keeni doono kadib buu wuxuu u sharxay cibaadaadkii iyagana aynu nidhi adduunkay faa'iide ku leeyihin oo wuxuu u sharxay inuu salaada oogo halkaasuu ka sii waday akhiiran wuxuu ugu gebagabeeyey masaa'ilkii akhlaaqiyaadka ku saabsanaa waxaan leenahay marka haddaynu rabno inaynu mashaakil xallilo soomaaliya ha noqoto halkan ha noqoto gaalada ha noqoto cid kale ha noqoto dariiqa ugu fudud ee bini aadamka mashaakilkiisa lagu xallili karaa waa in tawxiidkiisa la saxo tawxiidku waxa weeyaan qofku ilaahay rumeeyo weynidiisa garto cabsidiisu ay qalbigiisa degto rabbi uu ka dambeeyo idan wixii rabbi faray buu toos u fulinayaa bini aadamka markaa qalbigaa laga xukumaaye qaanuunka dabaddu midhmidhka fasahaadaa lagu qabtaa laakiin bulsho dhan qaanuun ma qaban karo bulsho dhan oo wax wadaadad sinada xabsiga ku gur ma islaaxayso laakiin bulshadu waa inay qanacdaa waa in qofku qaanuunku uu ka yimaadaa qalbigiisa uu ka yimaadaa idan ayuha alaxiba waxaynu leenahay ahmiyadda tawxiidku adduunka badbaadadiisa ku jirta intaynan aakhiro tegin adduunkan badbaadadiisa ku jira haddii aynu rabno ummaddeenna inaynu islaaxinno ama ummaddii soomaaliya joogtay ha noqoto ama ummadda halkan joogta ha noqoto ama dadkaaynu la deganay ha noqoto haddaynu rabno inaynu islaaxinno waa inaynu masalada tan ka bilownaa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa xataa kurubaadka iyo mashaakilka dunawiga markaad ku dhacdo haddaad tawxiidsata in lagu fudaydinayo oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebi yuunus oo uu liqay maxay bad madow ku dhacay oo kalluun sii liqay oo calool kalluumeed ku jira oo dhawaaqayoo leh fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin faاstajabnaa lahu wanajaynaahu min algami baa ilaah yidhi waa ajiibno waa ka markuu tawxiidsaday waa badbaadinay baa ilaah yidhi ma isagoo qurhaa wakadalika nunji lmu'miniin baa ilaah yidhi wakadalik sidaanu isaga u badbaadinay ayaanu dadka mu'miniinta kalena u badbaadinaynaa baa ilaahay tilmaamaya walidalik buu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy lam yadcu biha rajulu muslimu fi shayin qat ila istajaaba allahu lah xadiis saxiixa ayuu nabigu ku tilmaamaya baryadaa uu nebi yuunus ilaahay ku baryey qof kuma baryo ilaahya ilaahay wuu ka aqbalaa waxaanu nebigu inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam dhibtu markayna qabsato kurbadu markay jirto inaynu tawxiidsanno waxaad tidhaahdaan buu nebigu leeyahay xadiidka saxiixayn ku soo arooray laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu rabu alsamaawaati warabu alardi warabu alcarshi alkariim nebigu wuxuu leeyahy marka kurbadu idinku dhacdiyo mashaakilku tawxiidsada buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam
tawxiidku waa waxa uu diintu tilmaamayso qofku inuu ku helo cismatu almaali waaldami waalcird qofku uu macsuum noqonayo naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftidiisuba ay dhowrsoomayso markuu tawxiidsado waa waxa aakhiro uu ku badbaadaya baynu leenahay hadduu la yimaado isagoo saxiixa tawxiidku aakhiro laba mid unbuu soo gelayaa inaad jannada xagga hore ka gasho waa dadka tawxiidkoodu khatarta ahaa kuwaasi nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin xataa dunuub galay oo marka uu dunuubtaa la qirsiyo la yidhaahdo wax xasanado aad leedo aanu ka tagnay miyaa jira may intuu yidhaahdo la odhanaya haddaba annagu xasanaanu kuu haynaa bataaqa la keenaya marka hore 99 sijilli baa la keenayaa baa la yidhi 99 fayl oo madil basar inta ili ka aragtaya oo dunuubi ku qorantay kadib baa waxaa la keenayaa bataaqa kaadh tawxiid ugu qoran yahay kaadhkaasaa ka xoog badanaya wixii kaloo dhan jannadu hore ka galaya waa tawxiid nooc gaara ah laakiin waayo axaadiistu waxay kaloo tilmaamaysaa qaar tawxiidsaday laakiin tawxiidkoodu halkii la rabay gaadhi waayo oo naarta gelaya inay jiraan oo dunuubtooda hadhow inta naarta lagaga soo nadiifiyo hadhow aakhirka soo gelaya jannada marka tawxiidku aakhirana ama marka ugu horraysuu naarta kaa mamnuucaya jannana ku geynaya ama hadday macaasidaadu tiro badato uu naar ku geeyo dembigaagu akhiiran buu kaa soo saaraya jannaad gelaysaa marka waxa weeyaan tawxiid haddaad ku dhimatay waxaa la hubaa inaad janno geli doonto ama xagga hore ka gal ama xagga dambe ka gal tawxiid haddaad ku dhimatayna waxaa la hubaa inaad naar ku waaraynin ama marka horeba ha gelin ama haddaad gasho inuu ilaahay kaa saarayo subxaana wa tacaala idan waxaynu leenahay ayuha alaxiba inaynu qadiyaddan ka dadaalno oo dadka laa ilaaha illa allah u saxno oo u hubinno waa wax mashaakilkeennao dhan xal u ah siiba waxaan tilmaamayaa dhallinta yaryar ee casrigan yurub ku kortay ee cilmaaninimadan iyo ilxaadkan iswataa bartay ma anfacayo qur-aan la qaybsiiyo keliya soomaaligu wuxuu rabaa inuu yidhaahdo carruurta qur-aankaan baray dabeetana uu moodayo inuu xujadii ku oogay qur-aan ay xifdiyaan xujo ku oogi maayo walidalik ayaa axad ulculamaa soomaaliyeed baa wuxuu tilmaamayey niman baan ku idhi buu yidhi war tawxiidka dadka aada ugu dhigo waa ka markaasay yidhahdeen maya annaga yararkaygu aad bay u fiicayn oo bal iigee baan ku idhi buu yidhi malxamadiisaanayma buu yidhi qur-aanka kuwii inan baan u yeedhay buu yidhi qur-aan ma qaybsantay haa imsaad qaybsantay 15 jis dhankaasaan ula baxay buu yidhi waa nin reer galbeedkiiyo warkooda yaqaana si fiican baan ula sheekaystay buu yidhi warkaygii reer galbeed baan ku akhriyey dabeetana su-aalaan weydiiyey waxaan ku yidhi buu yidhi really do you believe God run ahaantii ma rumaysantay horta ilaahay jiritaankiisa haddaba gabadha 15 qur-aan na qorsan intay madaxa saa tirtiri bay tiri buu yidhi there's no enough evidence ma caddaymo fiican uma hayo 15 qur-aanana waa qaybsantay maxaan uga dan leeyahay markaa soomaaliya dadku ahlu tawxiid buu ahaa shubahaadna ma arki jirin qur-aankiisu qaybaabaa ku filayoo anfacayay laakiin halkan haddaad tidhaahdaan qur-aankaanu qaybsiinay iyo qur-aankaanu u dhignay warkaas ku badbaadi maayo wax la xifdiyey qur-aan aanu garanayn wuxuu sheegayo siduu ugu badbaadaa waa adagtay waxaynu u baahanay waxa weeyaan dadkan inaynu tawxiidka u dhigno dadkan inaynu tawxiidka u dhigno ama tawxiid urububiya ha noqdo ama tawxiid aluluhiya ha noqdo ama tawxiid alasmaa wasifaat ha noqdo laa ilaaha ila allah dadkan inaynu si fiican uga dhaadhicino waana mas'alada ka yarina ku badbaadayo ka weynina ku badbaadayo waddankeenuna ku islaaxayo idan waxaan labada daris ee kaan shalay akhriye kaan maanta akhriba uga dan leeyahay war xataa haddaynu adduunyo doonayno tanbay ku islaaxaysaa tanbay ku jirtaa adduunka islaaxiisii aakhirana walba waa isku waafaqsanayn wasala allahuma calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin